sanadkii 2020 ayaa waxa uu ahaa mid uu qaatay Khadar go'aan noloshiisa wax weyn ka bedelay waxaana ganacsigiisa uu ku bilaabay hal baaskeel kaasi oo alaabada iyo cuntooyinka fudfudud uu ku iibin jiray balse 4 sano kadib ganacsigii Khadar ee ku bilaabmay hal baaskeel ayaa mid noqday shirkad weyn caqabadahan ayaa waxay ahaayeen kuwa uu kala kulmay Khadar eheladiisa iyo dadkii ugu dhawaa markii uu bilaabayay ganacsigiisii u horeeyay kaasi oo ahaa inuu baaskeel cunto ku iibiyo aniga caqabadii ugu weyneed ee qabsatay waxay ahayd markaan bilaabayay maalintii ugu horeysay fikirka ugu soo dhashay qorsheeyeen hawshan bilaabo baaskiilada soo iibsaday $12 lagu soo siiyay baaskiilada markaan xaafadda geeyay runtii xaafadii caqabadii ugu horeysay xaafadii bay iga timidayba waayo dadkeen inta badan ama bulshadeena uma jabna يعني إن دوتك مركز جناسي بلاميان مركز وجوه الرئيسة يعني إن اللي بيجي كليو اللي قريب استاجو مركز واحد عادي إن حافظي تجاه لي له ريمته ما ديكو شامعات كبحي ما ديكو متخانق وصار قريبات ما بس كليو إن السوق واحدة وريتها كين إنسان مركز رمتي يعني عقبات بيجون نقطة إن حافظي لفتركي دي عن رمتي أرنكي كذا عيو لكن رمتي وقوات كيستفير كي ويا هم يباني مغذية ميل أنو سعودية الشركة دني خضر وسميه ayaa waxa lagu magacaabaa Dalba Food waana mid ka shaqeysa in cuntooyinka kala duwan guud ahaan ay kugu keeni karto goob kasta oo aad ka joogto magaalada Hargeysa shaqaalaha shirkadda Dalba Food oo ka shaqeysa arrimaha delivery-ga cuntada ayaa haatan waxay yihiin 20 qof kuwaas oo badan dhalinyar dhibaatooyinkan ayaa waxay ka mid ahaayeen kuwa uu la kulmay Khadar xilligii uu bilaabayay ganacsigiisa balse waxa uu kaga gudbay sidan sidoo kale waxa jiray runtii maalmaha qaar in dalab xilliyo oo runtii dadkii ay waxba ka soo dalbanayeen oo wax iibad sameeyay adigoo maanta dhan shaqeynayay daalin oo leeyahay baad ay hada wareegsay oo runtii mataqaana mushkiladaasna ay ugu keento laakiin waxa soo dhawaad kaga soo gudbin runtii wax noo muuqday maag ah in maalinta wanaagsan ay imanayso runtii waxyaabaha kale ay yimaadeen soo jiitay ayaa waxa kamid ah ayaan ku arkay xafiiskan kooxda Dalba Food in dhalinyarada halkan fadhida ee ka shaqeynaysa xafiiskan guud ahaan oo tiradoodu ay aad u farabadan tahay runtii dhamaantood baa yihiin kuwa aad u yar taasina waxay sidoo kale muujinaysaa in Khadar sidoo kale uu ku dadaalay in dhalinyarada uu shaqo u sameeyo gaadiidka shirkadda Dalba Food oo lagu bilaabay hal baaskeel oo Khadar cuntada ku qaadi jiray ayaa haatan waxay kala yihiin 3 gaari iyo 2 mooto kuwaasi oo ka shaqeeya geynta cuntada iyo raashinka laga soo dalbado shirkadda Dalba Food guud ahaan magaalada Hargeysa ahamiga Khadar ayaa ah in shirkadda Dalba Food ay gaadho guud ahaan deegaanada Soomaalida una adeegto kumanaan macmiil fariintan ayaa waxay tahay mid Khadar la wadaagay guud ahaan dhalinyarada qofna inta yar yahay wax qabsan kara marka in qofkii dadaalo si waxaan kula talin lahaa dhalinyaradu inay ganacsiga galaan waayo ganacsigu waa rajada kaliya ee qofku waxyaalo badan ku rumayn karo shaqaalanimo meel wax lagu gaaro marka qofku shaqaalaha soo maro oo ka soo gudbo marxaladda marka ganacsiga soo gaaro hana ku dhiirado inuu ganacsi abuuro waayo ganacsi qofku hadduu abuuro isaguna naftiisina shaqo u sameeyay team kale waxa laga yaabaa iyo dad kalena inuu sabab u noqdo inay shaqo helaan shirkadda Khadar ayaa waxaanu ka baran karnaa in si kasta oo ay adkaato aad gaari karto hamigaaga haddii aad samayso dadaal badan ku xidhno Ayuub Show la soo muuqaal cusub